وما سنتين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك قدال وقت الدبان ولا الجوجا مملكة قاتل البروتوكول كل بعتذ أوليه مركا ضدك أي دالين أما ضدك غاركي أي تجان إنه كسر هذا قفك البروتوكول لا ده اللي ليه أو وحي ربعونك جارسي كرين يكنت مع ذا لكن وما سنتين وحاربها هذا الكيك أنا كوب الله أبو همبليو مدحون السعيد عبد الله الدني مدحون كحجين كإلياس يقدون كبرلمان كسد هذا الدورتي انتبه إن أنا همبليو وأنا رادو آدي آد همبليو هول عصب وقت عصب واي عصب انتبه وأضلت ماذين كوي واياس عصب هولاس عصب إلهي كقوليو الله إذا كدقو سداس أي دنت الصومالية يدنت الرير بنتران انتبه يكجرت دي الليلة انت كدب محاربة سير أو كومن ظروفها الدلك وكسو جنيه هاي وحيابها كجرة يباهيدو ماشي أي مرة يسو إن بدنو كمدا مسؤولين تي هراء أيا شاكتي آد نقول معي إن ما أنت هرت الدلكينو فرصة أو هايستو إن قاب مال أنت اللي سوي ماذو إلا ده هي جابس كجرا للشاغو أيضا لسد ده هرتابا بلو وجوه الرئيس الديمقراطية ده دقائق دولة بدن وأم أفريقيا كيالو أما أدون كقريب أيسي لاتين أمريكا كيالو وحجر أنت ما أنت اللوجا هذلي نمسؤول ومدح أيضا فردي أما مدح لوكال هذا أما مدفع عن لوجا هذلي كرينا بدن indication كاستاس وحي مرول بمرقاتي يقول نغني هذا الكيك عن مرول بكوع العليو الصومالية والدكتاتور نما كما صورة وضع عندك بعدي dadka Soomaaliyeed saasay inoo wada eegayaan waqti ma la doortaha warbara loo kaadi war kuwaday ku qaylaan kuwa dhaay war hala dhaaf waqtigiisa looga leexdo laakiin maalinta waqtigaaga inuu dhamaaday la arko lagu dhaafi maayo koow maalinta waqtigaaga inuu dhamaaday sida looga gudbayo waqtiga dhamaaday aan la garanaynin laguma dhaafayo ayadan lagu simi maayo xataa markaas inuu waqtiga dhamaado dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin waqtiga la isdoorto la isigmaday mas'uuliyadda la issaartay in aad loo dhowro waxa kale u baahan yihiin maadaama dawlad dhisid aan ku jirnahay waqtigu markuu dhamaado sida looga gudbayana dadku inay si og yihiin waxyaabaha oo waaya aragnimada iyo khibradda aan soo joognay muddadii koobnayd siyaasadda ayna tusisay waay waa sidaas sababta aan sanadkii ugu horeeyay xafiiska aan nimaday 4 sano aad u kooban tahay inaan bilowno aan ka sheekayno dhaan war waqtiga duu dhamaado sidaas la yiri doona marka taasi fafaalo fiican oo tafaawul fiican leh oo mustaqbal fiican leh oo maxaan ku iraaday dadka Soomaaliyeed inay foojigeen ee dhaqanka Soomaaliga inuu asalkiisaba uu ku taagan yahay dimuqraadiyadda ay tilmaamaysaa waxaan rabaa inaan soo noqdo 23 sano la soo dhaafay jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya ay soo dhismaysay maalintii carta muxuu ahay dawladda ku meel gaarkeed lagu soo dhisay ilaa maanta dalku horumar uu soo sameeyay qof waa ku doodi karaa horumarkii rabay ee muddada lagu qaban karay waa laga gaabiyay laakiin lama fadhiin horumar weyn ayaa la soo sameeyay maalin walba meel duruuftu ma waxay saamaxdo wixii un deewaay aragnimo ay naga reebto waa gooni laakiin ma qabo qof Soomaali ah oo meeshii la iska joogay in la iska sii joogo jecel inaanu jirin laakiin marka qaarkood waxyaabaha aniga aan sheegay waxa kamid ah cabsida kamid ah كلام بح يكلسون الدرة يوحنا ظروفها أي كان دجالة السكاي كمتها عد جوني لوجو إيدي مجرته لكن إيرانان واللو بهايه وحكستو أو وناكسن إن ريسك وقادة تاي ولا جماعة مارمان ريسك كستو أتقادتنا فرصة كل حجرته أجو فرصة الآن معه جناعسي وحلي لا مالها قطرت أو بدل أجو جرتها فائدة بدل أجو جرتها سياسة دنا السيدو كلام مالها أو عبسيدنا وام حي والوجودية والوحين أما تفشلنتها أما محو هاي رأيك وركاك الديدة لكن كل رنان تيدا وحبضا أو وناك أيا كجرة مدحوين محو هاي فرولة وهالكان جوجا يو مقالة جروة ماليه دستورك كمال جاركا عن هذا هاي سنة أنكن كيسي لقصوا باللعبة أي كمتة جروان جروتو مدحوينه فرولة مركز جوجي مدحوينه كلا دولة قبل متجوجين مدحوينه شريف شيخ أحمد أيام محوها مدحوينه دولة فرنك ميرجار كعاي هل كان لغو باللعبي
meel walba uu nala tegay Addis Ababa uu nala tegay Djibouti waa nala tegay Istanbul waa nala tegay Naivasha iyo maxaa ku raacay Nairobi iyo Kenya waa nala tegay dastuurka inta waa wadnay maalin la iska dhigo war dastuur miyaha naga ilooba iska dhaafa naga dhiga meel la yiri ma jirin maalin walba waa wadnay maanta wali waa wadnaa dhowr iyo 10 sano kadib charterkii iska soo dhaafay dastuur markaan dhaanay waa dastuurku meel gaar ah laga soo bilaabo ilaa maanta waa wadnaa meeqa sano kala sii wadi karnaa meeqa jeeraan sheega karnaa dalaan rabnaa dimuqraadi ah inaan dhisno laakiin dastuurkeen waa naga maqan yahay sovereign ayaan nahay lama fargeli karo laakiin dastuurka xoogaa wali qabya naga ah Soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka waqti uma dhinna geed mira geed ku yaala haddii ay bislaadaan ee waqtiga ay bislaadaan ay ku habbooneyd aan inta la gurto aan la quudanin mirahaasi dhulka ku dhacwaan halaaba dastuurku waa bislaaday dood nooguma dhinna options nooguma dhinna wax nooguma dhinna ballanqaadkii aan soo wada ballanqaadnay kulligan waa la wada ogyahay muhiimadda uu leeyahay ayna tilmaan u tahay eed maaha in qof walba mas'uul noqonayaa dastuurka inuu priority koobaad u yahay oo dhaqan geli inuu rabo inta waxay tilmaamaysaa muhiimadda uu dastuurka dalka u leeyahay iyo dadka u leeyahay ka marqaati kaciis nin kastoo mas'uulana waa wuxuu jeclaan lahaa waana joona dastuurkuna waa documenti oo nool oo ma aha mid mar inta la dhameeyay meel la dhigay laga safray ee laga waxaynayo khaasatan dastuurka horena loogu soo shaqeeyay ku meel gaarka aan ku soo dhaqannay inta ku soo caanmaalnay wuxuu sheegayaa sida dastuurka loo sameeyay waa sheegaya ilaa maalinta referendum loo qaado oo dadka Soomaaliyeed ay inta u dhaqaaqaan ay dastuurkaasi u codeeyaan inta ka horeyso dhan wax ku dar iyo wax ka bedel inta waa leeyahay hatta markuu baarlamaanka federaalka u dambeeyay ka gudbo hatta wali wax ku darid iyo wax ka dhimis uu leeyahay maalinta referendum loo qaado ayaa waqtiga loo qabtay in la sugo ay tahay laakiin inta ka horeyso wali wuxuu ku jiraa in the making sameysinkii uu ku jiraa waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed cudurdaarada yar-yarka ah iyo maxaan ku raadayay looma dhamada iyo Somaliland maqan iyo hebela maqan iyo ma ahan dastuurku uu soconaya anagoo og waxa naga dhiman iyo waxaan u baahanahay anagoo tixgelinayno space-na u reebayno ra'yi kasta oo maqan oo maalintaas aan nala joogin duruufo kasta ku kalifaan waxa soo haray shalay baarlamaanka federaalka wax ka dhacay shar baarlamaanka federaalka waxaan qabaa shaqo aad iyo aad qurxoon u qabtay dastuurkii ma ahayn shalay waxa dhacay shalay habraaca dastuurku 4 bog ka kooban kulligiisba document 4-5 pages waay horta shalay waxa laga hadlay dhacay dastuurkii waa taagan yahay wali maal dastuurka waxyaabaha ku qoran oo samaysigiisa waxa kamid ah qadiyadaha siyaasadeed ee wada xaajoodka u baahan dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ka soo xaajoonaya markay wax meel isla soo dhigaana baarlamaanka keenaya baarlamaanka federaalka ayaana ka dooday horta maalintii anagu aan dhahnay waxba isla soo gaarnay iyo maanta bishii May sanadkii hore ee 8 bilood ka soo wareegtay iska maanaan fadhiis 8 bilood meel dastuurka inuu noo yaalo oo na sugayo waan ogeyn laakiin maalin walba duruufa taagnid oo la warbatan bal u kaadiyay yaanan hor loo soconayn bal aan korano aan sugno maalin walba meel aan ku soo hakanayn maalin waa fatahaad aan ku soo hakano maalin dagaalka shabaab orday ku soo hakano maalin kara ku soo dadka halayska batay oo ah waa la iskhilaafaya dastuurka hadii laga hadlo yaa waa qofka ii sheegay maalin aan la iskhilaafin yaa idii kara maalin hebel hadii la gaaro 3 sano 4 sano 5 sano 10 sano kala kadib madaxweyne hadii la gaaro ayadoo kulli nacam la wada leeyahay dastuurka al-imaana dastuurku waa document ku salaysan afkaar iyo ideas iyo aragtiyo mar ee afkaarta iyo ideas ka aragtiyo ay midaysan yihiin ma jirto waliba mid siyaasadeed kuma sii jirto ma midowdaba sidaas daraadeed dooda dastuurku waa furan tahay 8 bilood mas'uuliyiintii hore ee dalka mas'uuliyad ka soo noqotay u yeera say wax idin leeyihiin dhaha maalinta dambe culamaa diin u yeera say wax idin leeyihiin dhaha maalinta dambe muxuu ahay gudiye kala gooniyo u yeera say waa la soo waday 8 bilood haddana waa la sii wadaa wali
مقص لقوم جوين الدستور وصوت ما خلاص لما ده لما بلابن دستوركي dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurkii lama bilaabin dib u eegistiisa dhabta ah lama bilaabin hadday bilaabanay qodob kale walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ra'yiga u saaxiibta dadka ra'yiga leh oo aragtida leh oo maxaan ku iraahday mas'uuliyiin hore ahaayo mas'uuliyiin hadda ahoo kuwa inay bari noqdaan raba intaba iyo shacabka Soomaaliyeed hal midaan aan maanta codsanaya walaalayaal waxaan waa diiday aan meel dhigno kana ka fiican aan la nimaado xasan shaqo waxaad leedahay inta jaranjarta laga dago maya taas waa dhib badan tahay tana ka sahlan oo ka dhib yar oo ka ammaan badan ee inta aan marno laakiin looma dhama iyo ma joogno iyo ma yeelayno iyo ma ka dhici karto iyo ma rabo iyo ma magaciisi wax ma macnaa ma sameynayso markaad ra'yi la timaado tir aan meeshan maxay ahayd dastuurkan 12 sano laga soo shaqeynay max plana khubara ka noqotay UNDP ka noqotay xagga ka noqotay intaas milyan oo dollar lagu bixiyay intaas laga dhacay maanta aan goosan waxa soo dhan inaan xal noo ahayn dastuurka xoolo iyo aqli Soomaaliyeed lagu dhameystira wadanka Soomaaliya gudihiisa lagu dhameystira dibadda loo qaadi maayo وأولنا أمضوا دستور كود دب دولة بربوري إن بدنوا كمدوا دستور كود دبوا أجي سجاشن مع الماضي كل مستين أي دستور كلي ماذا دستور كان لإيماننا هنا ودوكومنت الدات قري أجادا بقول كيو بقول صح من القناي منزل إلهي حق سكسو دقي ما وبني آدم كنا ضعيف وايها نحكمه وقت قال نحكمه برا لسي بدليا ما قبنا يو وحبان نجا وحبان سير نجا ولكن الدستور وكنا أمام حوها بقول كيف أنت أنا دستورك حتى أنا أقولانين أنت صوت واضحين ما أنت وارون دجالك الشباب أن كترنا مثل ما نبهنا وارون دلك النجي أيا قيب كمتة وعلى قاعدنا يا لليه مثل ما نبهنا لكن وحنا رأينا سوقاته حالة هان يظروفها كسبنا إذا ذلك نويا لا ولقي سوجرجري مدحوين عبد الرشيد علي شرمارك الله ونحرسته مركو رئيس الوزراء يكون سقال بقول لحدنا أفرت هل هيسكي ونوج شيء محيي برجع قعنا واقع عضينينا دورشة سعودي قعنا تكلنا ذلك عن دفاعنا ولحدنا سنة كهر وحقوس داير ما أنت مواني فالد أهين ما أنت مالين تيدي مواني جوجل إن قعنا الدولة دسدي يهرو صعدك يضلك عنكوها بينه gacan kalena aan ma muxuu argagixisada isaga celina ama cidina soo hunguriyay Soomaaliya naga tag aan daano oo aan saas xoogeena iyo aqligeena iyo aan ku geyno isugu geyno maanan degdegin waxna lamaanan ordin teeram 4 bilood ah 4 sano sorry teeram 4 sano 8 bilood oo kamid hal shaqo oo la qabalahaayo meel loo fadhiyay waxaan u maleynayaa inaan lagu degdegin haddana wali kuma degdegayno ولي إن كنت دقدقنا أنص برد ببرلمان كنت كل منه اللب لي راه الله صعده ولي ديار أمين إن لسكسو جارو لسكو صار ربنا لكن ضد وهذا نجخل ننتو ولقى النصح مش طبعا سنة كلا نقوم في النهدان ضد ماشي إلى ذا إلى لك إلى ذا دانا نكبحن وردستور ك وحبضنو كهضليا أنت بدن ضدك خلاف كما تاجنا أرمها سياسة دواي ورهدي أن دانا لا بحسبيا لكينا waxaan ugu fulan maya xisbiyadu waa 3 waa 4 waa 5 yaan ugu filan in la yiraahdo ma naga dikreet man ku qorwayna labada xisbi dadka qaarkiis waxa arkay dastuurku ma kala meel mariyo xisbiga x xisbiga waayo oo saxiixayo bas waayo meesha dhamaatay maya xisbi national asidu ku soo baxay waa la yaqaan oo meelo badan oo ama Soomaalida dhexdeeda kamid ah ama dalal badan oo diriska ah xisbiyo badan inta la wada cararay ay xisbiyada nationalka la isla aqbalay ay ka soo baxeen process ay leedahay ku soo baxaan dikreeto lagu ma qoro maya oo dastuurka waa la meel mar hadii la xasheek madaxweynaha ku asna madaxweynuhu oo magacaabaya oo noqonaya muxuu ra'iisul wasaare xabsan madaxweynuhu ku xigeenku ka dhiganaya ahlan wa sahlan waa dhamaatay war dadka Soomaaliyeed oo meeshaas inaan mar hore ka soo gudubnaan u haystay dastuurka waa ka shaqeynayna waa dhameystirayna markaan dhameystirnana waxa dastuurkaas aan ku dhameystirnay oo isku raacno teeramka dabay ka bilowdaana teeramkan ma khuseeyaan
سيدي سبدت كوني أقعدان الربع مدحوينا ما أنت جوج هي برلمان ما أنت جوج هي محاكرة حكومة ما أنت جوج تاهي دستور كم بردم بعد الأنصحية ما خصيه دستور كحقوق سيا ناشنال كأ وحكدم بيا ما أنت أسيجها الأنصحية وحكدم بيو يو فعل أو نقنيا أو دقن جليا أو صعنيا لكن مركله كعيدا ولا ليال دلك دستور عن ويالنا وقت كلا أو عن دب أسي دجناه نوم هارين ونجح حمانية برلمان كفدرال كا وحيابا ومركا قروح بدنا هذا أنت اللي قتري عنقبتين تي على قاضي دينتي أنا لقى عفيه إيست أفريكان قلني وحبضنا كمذا هول سوس عتوا عنقبتين تدي أبدي تاريخ جمعية قرماء كده حس أنت جرت عنقبتين تقول ديرت أضل صاروا ورت عنقبتين سوالي صارنا ما له لقى قاضي سنة ذاك النوم مسيد النين كو دين عفين تلا بكون يسد حتى 18 سنة كوران باللون SMB1 يا SMB2 حكومة دي دولة دي أنا يقدم بيسمى كان ترى ذا كتجي ويسيو وضي ويكسي درتي حد أنا وان وقت مستني لكن حرا ذلك أنا وشو برلمان كان ما أنت جوجا شروع دي أو أنسحيي كالفرد يجي هوري هدانا لا أنسحي لين دينت اللي معفي لين برلمانكو شروع دي أمنية خصيصي أو أنسحيي هدانو أنسحي لهين عنقبتين تنا لقى مقادي لهين institutions كانوا مركز شقيان أو شقادة لقى ربع قبطان مركز محوها شروع ده سدد بدنا يلقوا منين أو أي وحكا قبي كوا بقبي بالدين تيان لعفين إنه ضد جارها مصلحتكو قبو كوا قبي هو كيان لقادن عنقبتين تو كوا جارها وبيلي متجرتوا ولا ليان شقة دولة الصوماليات حاجة أي سوق قبتين يا ماشي أنت مدي دستور كان السودان كلو حارنا إنه محوها ماشي سوق قبحه صوماليا ما أنت مالين أي مدنما حق الرأي جاه أي أوجا بدن تاع مجرته كما العيونات جمهورية فدرالك الصومالي هان وحن بلن قاذا أنت صرت قل أوقف من آدم وسمايكر أما أو حوج يجودي عقل جليكرو إن الحوج يجود على الجلية ضدك الصوماليات ولي بالسياسيين تا ما مولدا سياسة ضدك الدورتين ومسؤولك اسكو رأي إن نقلان وهالمال أي أوجا سو وذا جستان أراد قرنك ولي بالناشونال أجندة لوكال أجندة ولوسيك البنانا دبعنا كردون لكن ناشونال أجندة كم كلا دونا كرنو إن نكمل ذا سنان وحيننا لكن وحن رجينا يانا مركز أساس لهاي dadka ay nagal dhaxayso dooda Soodan oo haday tahay mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo adaha dawlad goboleedyada iyo haday tahay kuwa federaalka intaba assumption ka aniga aan waxay tahay dad mas'uuliyiin ah xilkas ah dalkan inuu hor u socdo raba inay yihiin caamil الناس على قدر عقولهم qof walba ilaahay intii ra'yigiisa uu shaqeynayay ra'yigiisa aqligiisa ka badan ma shaqeyn karo laakiin rabitaanka waxaan qabaa in ay maxaan ku yiraahdaa kulligood dad wada rabayeen taas intaasaan rabaa inaan uga baxo هاربا إن كسو لابتو بريهان ورك السعودية هذا أنت اللي قد واجي دولة إثيوبيا إيه أنا جنا دحتاج وحمان تعنقي دولة إثيوبيا ندحتاج مخصوصيان ورت الصومالان وحصومالان أجار معه ضد كسر الصومالان أجار معه مسؤولين ترى الصومالان قار كم إذا ضيق الضمان أي قال ضمي مركا عب عمبارين أي كم متيسين ضدك الصوماليات مجرته لأنه وين تسين ضدك الصوماليات وقوي الصوماليات دقن وح أي ربان أي وح دبي أي وح جديدين وأن تسين عطير إنه بشجن الله ما قاضي دولة إثيوبيا مر بدن واشجن هذا أنت والله الشجن دار شأن إصدارني درس منهم أنا إصدارني وأنا صحولني درسكم مني إله درس نقد جي وأنا صاء هين بريها نسيد مقطوسي أهانينا هل أوبشن النفر علاقات كاين إنه اسكو في عناده صاحب بينا أهان مصالح ذا نقد حيصود إن وذاقم هو حدان أن إصلاح مرسنه لبدنا دي نعب فإذا نقول إن كشقين أوبشن النفر كاسوات دولة إثيوبيا gaar ahaan mas'uuliyiinteeda oo ra'iisul wasaare ugu weyn yahay
إن بدن وحيكون العليان إثيوبيا وادبرنتها يو دقاليه ذا مهر مري كرتو لان لوك دول يكون حرنتها يو بد ملها كنتم دولة كدوات وأدونك كمدة أيام بد لهين قاركود يوروبي كويالين كوا أوهر ومرسن يوروبي كمديين ومثال أنا أسوقات وجعلها سفيرك سويسرلاند أنت كموضع سويسرلاند والله لوك دي بدع ما يقبتها سويسرلاند دي بدع سنتها دل أو دي بدع سنة وحيمية إيه كوا كلو بدنا يوروب كمدة متطورة هرو مريا وح أنت أصدق إثيوبيا مركي إريتريا إذا كلا بحين يا هذا صدق سنة لقصوري دقاليه هذا السنة كستو ديجيت لبد ديجيتو كوراي ما سديد إسقال إما طبعا إيو كوراي صدق كسنة لصورة في إثيوبيا تاريخيا مركي أوجو مر بدنا دواي بدنا ما عين هيسن دلك كلا إسواسيلان اللي يرادو يبطسوانا إيو ودلك أوجو مر أفريقيا دقالوه وأكو كبعي كمدين بد ملها واجوبان relationship correlation كما تحيو هرمرك دقالها يبدلهانتا علاقات كما تحيو سياس درادي مدحده waxaan leeyahay buugaagta dib ugu noqdaan buugaagta nadariyaadka theory-ga iyo development-ga dib ugu noqdaan waxa soo haray aan hadda ka horna aan ra'iisul wasaaraha Ethiopia aan ku dhahay Ethiopia badda access ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su'aashana dhex taalo ee waxay tahay Ethiopia badda access way u yeelanay see ugu yeelanay aan ka hadalno farsamo waaye siyaasiyan annaga dan ka aragno dekada badan oo Soomaaliya leedahay dhaqaale ahaan Ethiopia inay isticmaasho oo badacada Ethiopia ay ka degto oo ku Ethiopia ay dhoofinaysa ay ka dhoofaan oo maxaan ku yiraahdaa pipelines-keeda shidaalka annaga maslaxad ka dhex aragno dibnu kuma qabno laakiin sidee East African Community aan ku biirnaan ka mid nahay South Sudan iyo Uganda iyo Burundi iyo Rwanda waa dalal ka mid East African Community bad malaha Kenya iyo Tanzania ku kala xiran yihiin mid dhul ku sheeganaya Kenya iyo mid dhul ku sheeganaya Tanzania ma wili aragteen wadanka yar ee Rwanda development soo ma sameeyo dalka tilmaaman sidaas daraadeed waxaan rabnaa walaalaha marka inaan xasuusino علاقات ماله هرمرك دقالة هي حب إنها تكتالد علاقات ماله لكن هرمرك دقالة هي إنها بدها معاملة تكون جارت علاقات إلى هذا وما ننتيجن لكن دولك الصومالية ذان قادنا سمال عن مرو أم بد وجار عن أهله مركان بد جارنا أنت سنة هذا بدل يا مايا وأندين تاسمنا دعيس وقتها السجاد مننا ما دعيسه سيكر فوقانشو يور كتالو ينعيب يوان أنا جاي يوتيوبيا لح بقولوا سنة تاريخ أنا قد أحسه لح ده بقولوا سنة تاريخ ده أنا تاريخ قرحان ما هين تاريخ جهاد يكرسيد يمحاسليبين يبلاي كسلي سنة إيه سجاشن كيان هاي سنة أنا كصومالي هدانا تاريخ ده يسوق جبودي مركي محمد سياد بري من قصة حيل مريم بيدلك كعررين لا بدي دولدون يدومين تاريخ ده لح ده بقولوا سنة صوتي أنا وايست ماشي سنة كده ماتان أنا كصومالي هدانا وايسن إثيوبيا هالكو حكوا قولي ستدلك دن إني قبضته وأنا قبضتي سدح سنة جدود دلك دن دبي ودجا أنا جا هالكو حكوا قولي سنين دور كو حوضا كو جوست وقت دير إنه قادتي والتاريخ داس بقاس أنا كصومالي هدانا واسكال لابني بق عصبان فرني حدود يقول يا دي لسكو شيغان أيو أنا جاي أهد إنا شيغانو حنلنا هاي ورحد عالم كوسو جارهير حدودي حتى لقى مارمو أو لسكو ولا صعدة أو الدويدة قاركيد ضدك ماشان فديها إن بدرنا كبدا يوروبي كيما دينو باسبور يوروبي ستانا يوروب جيس تاتك جيس كله إن أدوق بحيس أدوق الحدود جاري وح جاري مال جارو لجوج عليه مركي أرماء أمني وحلا ميدا لقي ماذا أدنى أكيد ورصيدا عن ربناه أنا جواسداس دولة إثيوبيا يهجانك إثيوبيا وحن لنا دول صوماليات دكذا عن ربنا وكو أنا قاعد دورانينا ماشي عن كربنا أنا قاعد دورانينا سيدا عن ربنا إذن كنا هينا نها نما قبضته نجا كين قبضته وإحنا قبضته ما من أقولين هذا إذن تستند أنا قوم أقولين ميركا إذن صدقوا أن وذا هذا لنا دكذا يسيدا وإحنا قد حي عن كوذا هذا لنا
marka aad ka tanaasushaan dhulkaan aan nus qaadanayna dhulkii aan nus qaadanayna nin la anaga la hadli mayno wax nagala dhaxeeya marle dhimirku ha idin soo noqdo dhulkaan nus qaadanayna ka imaada ka bacdi 2-3-4 dekedood dalka meesha maxaa laga yeelay waana noo socotay sheekada ah dekadaha jiro in jidad loo sameeyo dekada cusub in la dhiso annaga iyo Ethiopia iyo dawlado kale iyo urur caalami ah waa bilowna sheekadaas hal mara 180 degree ay nasiib dar saaxiibadan isleexiyeen ka soo noqdaan leenahay cadaawad kale iyo xumaan kale oo naga dhaxaysa ma jirto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha Soomaaliyeed nooga yimiday dalka dariska ah Djibouti Ethiopia Kenya intaba xafladan iyo weyneyntan nagala soo qayb galay waa ku mahadsan yihiin Soomaaliduna intaas isu tahay dawladda iyo xuduudda iyo calamo iyo xataa na dhex yaalaano laakiin wali Soomaaliyaana ma kala maqnaanayno magacyadan doona hadii oo nin Soomaali oo Mareykan iyo mid Ingiriis iyo mid Swedish oo dalka imaado oo joogo mid Kenyaati iyo mid Djibouti mid Ethiopian inuu yimaado maxaa diiday marka taasi hawl oo hadda oo muxuu ahaay dib gaaran u haysa malaha laakiin siyaasadda dawladda Ethiopia ay qaadatay ay ku taagan tahay waa diidanahay waana sheegnay waxaan u diidanahayna waa sheegnay hadda banooniga marka garoonka dawladda Ethiopia dhex yaala ayada sidii uga jawaabaysaan rabnaa inaan sugno dib kale ma jiro mar kale madaxweyne Saciid madaxweyne ku-xigeenka Ilyas guddoonka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka Puntland dhamaan waxaan leenahay hambaliyo waa u hambalyeynayna muxuu ahaay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen wuxuu yiri waa sidaan u dhima rabo yiri ninka odaga ahay waa sidaan rabno in nin madaxweyne ay mar labaad la doorto khibrad iyo way aragnimo ba ka soo kordhaysa horta ceeb ma laha Soomaaliduna waxaan u maleynayaa taas in badan oo kamid aan la isku haysan sida la isku dooran leeyahay aan hagaajin hadii aan leeyahay mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin reer Puntland guud ahaan waxaan leeyahay hambaliyo guuleysta insha Allah